السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلامي sida caadada ah galabta waxaan iyo wixii fursad ah aan islenahay waan ka faa'iidaysan karaa ayaan waqtigeynaa lacagta hadda saaka soo sheekeeyey gurubyada iyo tradingka waxaa life noo ah lacagta loo yaqaano euro USD lacagtan aragti ahaanteeda iyo fikirkeeda qaabka u shaqeeyo in badan waan ka hadalnay shalay isdul istaagnay shalay trade ayaa jiray oo halkaa ka qaadanay one more time waa ay soo laabatay corruptionkan kan ayuu ahaa aan trade ka raadinaynay si qurux badan hadda waxaa moodaa inay nusiin doonto filashadana ay tahay inaan ka faa'iidaysano tradekan galabta ah wixii kaloo marka lacagaha kala guud ah oo dul istaagayna laakiin euro USD ay hadda life no ah targetka kalena lahaygaasi at least oo 38 bit naga badan hadii ay noo suurta gasho lacagta DXY-da haddaan dhowr qalab aan ka dhaho meesha ay joogto iyo qaabkan shalay u analyze garaynay waxay ahayd in supply zonka mar labaad la tegi karo waa kii shalay aan calaamadeynay si toos ahna loo tagay waxaan filanayaa waxaa waa inuu one more time ilaa iyo noo sameeyo zonkaasi marka uu ku laabto wacalaykum assalaam walaan wixii su-aal aas leedihiin qaybta chatka idin furan oo ay ula soo wadaagi kartiin marka DXY-da filashadeeda waxaan haysanaa ilaa zonkaas inay sal sii aadi karto fikirkaas waan haysanaa qaabka hadda ay salka ugu soo dhaqaaqdayna waa qaab lacagta euro USD ay buy ku aaday soo maartid so ilaa iyo galabta sessionkan trade hadda quality-ga noola euro USD marka SL iga dhaqaaqday trade weli active waaye zaid muusan dhaqaaqin saakana tradekan soo tagay kan ayuu ahaa equalkeena kaas ayuu ahaa weekana la tuuray maybe weekan hadduu kaa tuuray at least adaa gudaha ka galay sababtoo ah weekan haddii xataa halka aa ka qaadatay still 15 bib muusan gaarin so maybe dadka less than 10 bib ka dhiga ayuu SL kaga dhacay laakiin haddaa 15 naasuuqa dib uga baxdid weli fursadii weli way jirtaa okay so targetkeen ilaa haygaasi waay okay sidoo kale shalay haddaa la socoteen GBP card ayaan dhowr qodob ka dhahnay ayana weli ilaa shalay wax isbedel ah ay samaysay malahan wala baayaysan si aadin wala shalay aadin iskaga jirtaa consolidationkaas shalay waxaan ku kala tugnay haddii ay GBP card kusoo laabato intrigan inaan buy halkaa ka qaadano okay so dhalinyarta life joogtaysa way la socdaan fursadaha laakiin ani haddii maybe marka ugu horreysay ay tahay oo aan life imaanaysi ugu qaabka uu suuqa u taxliilinayno ma ahan wax hal class aan kusoo koobi karno laakiin just faham entry model un baan waqti siinayna galab walba aan saasku waqti u siina sidoo kale haddii wax news ah aan idinla fiirin lahaa just waa wax news ah sameesaas ma jiraan so maybe beri wixii ka dambeeya arbaaci iyo beri arbacadoo kale newsas iska jiraan kamaad wax news ah ma jiro so GBP kana weli wax xal ah ay isbedel ah ay samaysay malaha saar socoteen shalay halkaasaan ka qaadanay tradekan intrigiskaasoo ahaa in yar oo waxayna siisay dhowr bib ah tooni dhowr bib saaka TB1 waxay soo taabatay scenario 1kii oo loogi halkaas ahaa wax isbedel ah maysan samaynin siduu trade u nool yahay wax SL ama hayno wax TB ama hayno range-gaas iska gashay so waxaad dareemi kartaa marka suuq markuu range noocan galo big move ayaa xigo big move macnaheeda waxay tahay so awood uu ku dhaqaaqi doonaa inay buy no aata rajeynayna in si lasoo aadan waa macquul so just aragtidaasi aan iskaga adkeysanayna laakiin waxaa ogaataa keliya inay maanta move sameyn doonto GBP ka dhankay taan ogeyn laakiin movekaasi expectationkeenu way ku jiraan okay GBP USD idan sidoo kale haddii aan in yara dib aan u yara baxo ayada xoogo manipulationkeeda badan sida euro USD camal ugu degno shalay high horta waa la qaadi waayo baxstiin trade shalay halkaa ka qaadanay highgiisa waa lagu fashilmay then haddii highga la qaadi waayo halkan waxay noqonaysaa marka inducement expectation keena suuq waxaa macquul ah ilaa hoosta in usoo daato taasi horta waa inaan la socotaa ilaa macquul ah oo soonka imaan haddii
taasi ay noo noqon weyso waxaan sugayna waxaa waaye shiftigii u dambeeyey lowgiisa oo kana ah ina loo qaado so kan si uu manipulation u noqoto okay so taasi ayaan fikirkaasaan ka qaba GBPUSD laakiin eurada xoogaho way ka degan tahay GBP da xoogo move badan usbuucan shalay iyo maanta ayaa dhowr move samaysay ya marka GBPUSD aniga aragtideeda waxaan qabaa dalaahayo loogeeni 1 hour halka ayaa laga jebinayo aragtideena baa waxaa noo ahaato wax sell ah yaanan waqti siin sababtoo DXY dhan order flowga sell okay so GBP kan waa ka hadlay euro USD waa mid hadda aan sheegay oo ayadana qaabkii u socoto qaab fursad buy inayna siisay macquul tahay haddii trade-ka maybe uu halkaas kaga wareegtana just let's be patience inaan dulqaad yar muujino intaa wax macquul ah ilaa iyo zoonkan inuu markale soo taabto taasi oo ayadana possible suuqana mar walba waxaa ka falitaa waxaa waaye ruulsigaaga bis wixii kaloo adiga maskaxdaada fikirkaaga just banaankaga soo tirtay so euro USD arrintaasi xaalkeeda waa saas marka GBUSD waa ka hadlay GBP card waa ka hadlay euro card haddaan hal iyo laba aan ka dhaho euro card waxay taagan tahay supply zone oo 1 hour ah kani anaga wuxuu noo ahaa correction then shiftigan inay noo sameysaa suliina so before can work shiftigan hadday noo sameyso retesting haddaan keen soo sari karayn karnaa laakiin wax hadda oo aan ku degdegayno hadda aynu ma lahan ilaa shuruudaas aynu dhamaystirto then USD card haddii hal iyo laba ka dhaho iyadana shalay ayaan ka hadalnay haddii aad tira halkan ka qaadan kartid lifekii shalay tiijoogay tira inaad meelaha ka qaadatid ani kalsoonideeda kuma jirto anoo og inuu gaabkan iga sareeyo haddii shalay aad dhahna soo mahen samway suuq waxaa moodaa inuu buy push gareeyay ilaaba so hadda haddii maybe ayluga u dambeeyey uu shifta ku sameeyo liquidity waan raadsan karnaa then soo laabo sidaas sel waa qaadan karnaa sababtoo ah gaabkii intiisa ugu badneed waa la buuxiyey intiisa ugu badneed waa la buuxiyey dii marka suuqa oo nidaam noocan sameynin aa ku degdegtid way adkaanaysaa inaad suuqa okay so waxaan usii gudbayaa USD JPY hal iyo laba haddaan ka dhaho jihadeeda horta waa sel aysi ka dhalkaas shalay dhignay waa lasoo dhaafay supply-gana loo socdaa sida haddii ii muuqato kani buygan aaday dhalani dhinkii wuxuu keenay correction haddii oo dhablog aan fiiriyo sababtoo kana wuxuu noo yahay low okay so kana waa correction qaabku u socdo wax entry model oo hadda equal uu noo sameeyey oo ii muuqdana haddaan dib u raaco iima muuqdaan weli order flowga baiska kan waa high kan waa low kan waa high kan waa low kan waa high kan waa low then high kan inuu sii sameeyo laga yaabaa si uu zoonka u sii galo okay marka daawasho bay leedahay USD JPY waxba kama soo dhowo then kan JPY sidoo kale ayadana awoodeeda weli waa buy u sii socotaa halka waxaan ku haynaa new high trendiga taasi hadduu new high yahay kana low noo ahaa so suuqa ma laga yaabaa inuu high kan loo raacay that's the question su-aasha jirta waa taas oo kan JPY ugu fadhino laakiin nidaamkan hadda socdo ilaa korkaas ah weli suuqa waa awoodiisa correction baa dhihi karna okay so wuxuu dhahay euro USD ay la qaatay qofna euro USD weli maysan gaarin sababtoo ah maybe hadda kadib hadday ku dhacdo maahane tirilka saaka barta aan ka baygaraynay halkan ay ahayd so wiigana soo daatay wiigan wuxuu soo daadiyay wax 7 bib ah maybe haddaa 7 bib SL aa dhigatay laga yaabo inuu kaa saaro laakiin suuqa haddaa 15 bib siisay awoodu kaaga saaro ma lahayn haddana waxaad moodaa inuu kusoo laabtay life oo suuqa buy sii aadi karo so taasi waa aragti aan aniga as leeyahay ilaa hayo aan tegi karaa haddii ay noqon weyso marka 15 bib haddii marka lasoo buushta ilaa halkaasi markaas waan ka samaraynaa laakiin intayba iska saaskiyada wareeganayso waqti bay u baahan tahay so New York sessionka hadday noo dhamaato ayada sal iyo buy waxay tahaybo waa aan arki doonaa laakiin GBUSD qofkii qaatay isal haa sababtoo GBUSD iyo euro USD isku nidaam ekaanayeen kanu equal keena noo ahaa sababta SL aadayn waa garan kartaa sababtoo ah haygii horaa lagu fashilmay in hay la sameeyo so kaasaa lagu fashilmay shalay so kani marka automatic inducement oo noqonaa so haddii haygaa hor lagu fashilmo
kii halkaa potential higher logii oo halkan ka dhalan lahaa automatic waa la manipulate gareena taas wax iska caadi ah waaye laakiin USD qofkii qaatay maya still active waaye oo mid mar walba aydan dhahan haddii aad USD buy u gasho GBSD na buy u gelin sababtoo ah labadooda mid ka dooro that's waxyaaba badan aan ku celcelin haddii aad fahansan tahay lacagaas isku raacaan so haddii USD na buy aa qaatid GBSD na buy qaatid labadooda waxaa macquul ah inay isaga wada siiyaan so sida hadda USD iyo GBSD manipulationkeeda u badan yahay oo selskiga aaday ay yuuran awood u leedahay iska so mid inaad dooratid haddii GBSD ku soo aaday well done muhiimadu waxaa waaye inaad trade-ka shuruudiisa ilaalisid that's the wax meesha loo imaado GBSD USD haddaa qaadateen kasii qurux badan okay marka hadda xaalad geodur ahaan haddaa suuqa waqti wada siino wax hadda live noo ah noo dhow iyo muuqda hadda waa Euro USD so Eurocard yarka soo qoraayo Eurocard confirmation structure shift ugu baahannahay maxaan haynaa equal high oo halkaan loo yaalo equalkaas haynaa so kii manipulate gareeyo waa kan kana shift ugu baahannahay haddii uu noo sameeyo waan qaadanaynaa okay order flow trendigan Eurocard waa sell okay waa loo waxa haysatid waxa socda ma correction so GBP kaada ilaa shalay ilaa maanta iskaga jirto consolidationkaas meel jaa ma lahan so aydan qaabka u dhamaato arki doonaa waa sagan suuq kaloo active noo ah stopkiisa halkaas yaalo waa shalay halkaa ka qaadanay shalay marka yar qaadanay in yar uu buyer aaday ilaa halkaasi ah laakiin wuu ku fashilmay inuu high weli sameeyo just waxaan moodaa isbuucan dham haddii trade laga falanqoodo intaan qaadanay waa iska kooban yihiin GBSD oo kaaska shalay ahaa Euro USD oo dad kala qaateen ayagan oo kan ahaa then hadda oo Euro USD oo kan ah so trade-kii saddexaad aan qaadanay execute garaynay so haddii halkan kusoo laabto marka saaka Euro USD GBSD midkoodkii aan qaadano GBP card weli open waaye GBSD shalay so journal waxaa moodaa labadan trade bis inaan execute garayay kan saddexaad waa hadda Euro USD okay so aydan aan ka war sugno DXY-dana waa saa sheegay waxaa macquul ah hayaloogan hadda la joogo haddii la qaadi waayo okay inta badanna yuurada markaa fiirinaysin DXY-da xaaladda inay ka wareysin DXY-da nidaamka ay ku tagtay haygaasi waa zoonka ay ku tagtay order flow-giisa waa kan kan waa high kan waa low kan waa high kan waa low so kaas high kan waa ku fashilmay kaas high kana low then high ka loo sameeyay so high low ugu dambeeyay kan waa shift loo soo sameeyay sida yuurada loo high 5 minutes kan shift loo sameeyay we can see in manipulation halkaan noqday hadda fursad sell ay tahay u badan tahay hadda aan daqiiqada inaan la joogo inay one more time hata intriga gudaha soo push karayso one more time inay intriga soo push karayso si marka buy loo aado dulqaadkaas oo u baahannahay candlekan hadda buy-ga furmayna wuxuu ku dhammaaday manipulation oo highgii hore 5 minute-ka uu ku guuldareystay so kan haddii uu ku guuldareysto kan muxuu noqonaa marka automatic inducement loo noqonaa suuqa caadi inuu soo jibo dan uu buy aayo markaas soo duwani so laakiin haddii aad saaka qaadatay waxba ha welwelin just stop loss card sida ha kugu yaalo suuqa indhaha ka daawo so qof kale su-aal qaba ma jira ayadoo life kale mar badan aan isku dayo inaan dheereeyo way jirtaan laakiin haddii wax entry leeyihiin focuskii waxaa waaye keliya fursadaha inaan falanqeyno wax kale aan waqti iskaga luminayna kale oo dhiirigelin ah ma jirto everyone mas-uuliyadda aad isa saar then fursadahan ilaalin just trade karey galab walbo fursadda qaado maalin walbo jaaniska ka faa'iidayso DXY miyaan u xisaabinaa yaa DXY guud ahaan waa sel sababtoo ah 1 hour-ka waa tii shalay aan ka hadlay oo dhowr mar isku day inaan isla fahanno ayadoo loohayaa la jibinin kan loohayaa u dambeeyay waa kaasoo la jibinin change of character lagu sameeyo anaga jihadeen waa sel haddii kaa la jibiyo wixii ka dambeeyo maybe wegan baa xisaabi karnaa sababta wax kale maaha meesha laga soo laabtay waa 4 hour high low kan wax noo yaalo waa 4 hour new high so 4 hour new high hadduu kaa yahay kan automatic high low noqonaa so ma dhihi karaa suuqa kan buy noqon karaa anagoo loo hayay 1 hour ka aanan la jibin so
فرصة جديدة صح كان جي بي يو هل مر كل عام كان جي بي يو دام كل لابتو وحكي لي عن كده وحاواي one hour new high عن هنا so مسؤولش marka waxay noqon kartaa email in high kan la sameeyo mase waxaa lasii wadi doonaa forward new logan taasi marka qaab qodobeysan haddaan u dul istaagno horta kan waa correction hadda right now okay wax kalan uma dhahay inuu correction yahay sababta 4 hour kii new low haystaa 1 hour kii low haystaa laakiin low high 1 hour aa jiro oo 1 hour new high lagu sameeyo so kan maybe 1 hour impulsive uu noqon karaa uu awood ku yeesho korka ku sii aado mase correction 4 hour uu noqon karaa si sel loo salganayo so correction kan su'aal badan ka tahan card GPU bedelkeeda USD GPU aa clear USD GPU ay asal adkeysan ayaa hadda correction sax ah oo 1 hour low haysto laakiin card GPU ay su'aala ka taagan jihadeeda macda so maamul ma soo gashaa live-ka haa haddii uu ku dhaafan youtube ka soo daawo make sure inaad waqti siisiin fursadaha noocan so hadda euro USD aan bal ka warhayno qaabkay ku dhammaato iyo nidaamka ay u dhammaan doonto aniga aragtidayda waan ka hadlay waa fursadeeda waa buy sababta impulsive-kan jihada u socdaan la jira haddii hadda maybe afartanka bib aan ka helno maanta banaankan waa like was okay laakiin GBP USD-na qofkii qaatay oo masrajo kale kaliya marka structure shift-gaas aa sugaya waxaa dhacay waa manipulation kana manipulation ah so shift-ga hadday noo sameyso soo laabashada buy waan qaadan karnaa so euro USD GBP USD kulli waa buy okay study hadda maxaa life ku ah euro USD life ah so euro USD life ah oo buy ah shalay GBP kada life ahead oo buy ahead laakiin go-aan cad waa ka lacsan ilaa hadda jiha aan u riixo mise meelaan u qaadan garan lacsanahay so GBP kana laakiin what I know GBP card laba qodob ogahay inay impulsive win soo wado jihada loo wadi doonaan ogeyd ilaa inuu bagas noqdo aniga dan nagu jirto caadihan GBP card inay buy noo noqoto dan nagu jirto taasi isla fahmay inay buy noo ahaato oo ilaa zoonkan loo tago haddii ay samayn weyso euro card bedelkeeda ayadaan bun haddii loo bedelkiisa yaalo haddii ay GBP card sel nala aado dee euro card sel noo soo aadayso shuruudii noo dhamaystirayso ayadaan sel u qaadanayna you have to ina option haysatid haddaadan option haysan weli suuq maadan baran haddii meel lagaa qaado meel kale aadan u guuri karin weli suuq maadan baran okay sababtoo ah fikirka trading ka dhana wuxuu yahay probability so dhan walbo uu suuqa aado just waa la jiraya waxaa jeceshahay gooni ku ah ma jiraan trader qaata SL kaaga dhacay lacagta kaloo la midka ah fiiri lacagta kaloo la midka ah oo aan ku leeyahay tusaalahan GBP ka SL kaaga dhacday GBP ka markii SL kaaga dhacdo oo iska dawareegto the euro card waxay ku soo sameynaysaa shift ayada already low ahead so ayadana marka sell request da case sell soo qaado GBP ka iska sii daadato warkeeda meesha ku xir la tambid 15 bit ka badan suuq xabsiin so trade khasaaro ku hayna daawan trade faa'iido ku wadan kor cararna xirin okay patience la'aan darteed ay dad badan ku khasaaraan laano dad badan oo systemka discipline iyo istaraatiijiyada ruusiga aad u yaqaan way buuxaan wax meesha wada buuxada waxaa waaye dad smart traders wada aho suuqi technical markii loo daro si fiican analyze gareyn karo kan inta yaroo lacag sameysaya oo patience leh waaye suuqa haddaan dulqaad lahayn dhan walba ku wadi karaa okay patience basically sababtoo ah suuqi faa'iido ku wada waa ka cararay kii ku khasaarinayna waa iikoo ku qaadaya suuqu uu kaa soo celin doonaa khasaaraha uu kaadiyaa leedahay su'aale marka dhan walba lagu wado waa u qaadaysaa suuq so ma fiicno so you have to inaad dulqaad badan muujisin so hadda euro USD-na waaba ka dhawaajiyay qaabkeeda iyo fahamkeeda haddaa idinku celiyo stop loss-kaaga at least 15 bib suuqa dib uga baxa sababtoo ah suuq haddaa gudaha ka geshid dee awood uu ku dhaqaaqmaana siinin so suuqa ha fiican markaa buy mise sell avertid at least zonka aad ka gashay oo aad ka trade garaynaysa inaad dib u baxdid
25 العلس ده حاجة 1 to 3 arkadaas waxaas waa wax suuqa lagu joogo $1 khasaar $3 ayaa lagu jooga laakiin rag suuqa hubta malaha meeshu aadaya haddii suuqa targetkiisa uu ku siina waxay hayga uu tagaan ha kusii deganaanin hunguri weyn ugu galin laba targetkiisa oo intaas kaga bax okay fikirka intaas waaye wixii kaloo kasoo kordhan waa idinla wadaagi doonaa GBP card wixii kasoo kordho iyo Euro USD hadda labadaasaa live wixii kasoo kordho warcada idin kaga keeni doonaa waana idinla soo wadaagi doonaa dadkii saaka GBUSD qaatayna oo manipulationkaan ka saaray suuqa waxaan u baahannahay MSSkaas ani ahaan Euro USD aan qaatay GBUSD maanan qaadan GBP card shalay furneed GBUSD isla shalay aan trade-ka qaaday oo kana ilaa 60kaas pip so trade-kii waxaan maraynaa saddexaad journalkeygana December waa kaas okay journalkeyga December waa kaas labada lacag oo ifun iyo Euro USD hadda open laba lacag hadda open hal waa ka soo Euro USD so hala open nooc laba open nooc so GBP USD baa siisay ha GBP USD manipulation oo kugu dul dhacay structure shift u baahanaa so saddexdan baa hadda work keeni doonaa dii ay noo suurta gasho dii tahay aan sii dul qaadano DXY aan ka dhawaajiyay halkii aan rasasan meeshii u dhacdo aan aragno maadaama Euro USD aan baa ugu jirno ayadii lacagaas noo gaarto kan waa idinla soo wadaagi doonaa waa ka baxsan iyo wixii risanta so inta qof oo joogtay live-ka halkan idinka salaamaya videogan insha Allah waxaa idin soo dhigi doonaa qaybta YouTube-ka daqiiqadaha xiga insha Allah thank you so much